Fanaan Axmed Biif oo hooyadiisa oo intaasoo sano soo korinaysay u duceysay Xajka tagay, laakiin arrinta qabsatay ayaa waxay ahayd hooyadiisa iyo asiga dagaalka khilaafka culus ka dhex dhacay oo dhaliyay ninka hooyadiisa hadda ay qabto oo adeerkiisa ah ayaa Axmed Biif aad u xumeeyay. Axmed Biif oo heer uu gaarsiiyay live inuu soo galo live-kii ku dhex hooyo uu aad u sheegto dhibaatooyinka badan uu kala kulmay adeerkiisa oo heer uu gaaray salaada Rabbiga in lagu baryo ama in mar walba la dhaho asigoo qof da' ah tuko, bal gabartiisa ee mar walba ku bariso salaada bal tuko. Axmed Biif oo mar walba adeerkiisa waalin jiray waana mar walba ku waanin jiray in uu salaada Rabbiga tugto, laakiin dabadeedna suubaanadu u waday khilaafka asiga iyo hooyadiisa ayay ka dhex abuurmeen. Axmed Biif oo markii dambe xajka aaday si uu u soo cimraysto, xajka u tagay, hooyadiisa ay u duceysay, laakiin dabadeedna waxay dhalisay arrinta in ay social media imaado. Hooyadiisa oo afka furatay, Axmed Biif hooyadiisa ayaan ahay ay tiri, muxuu cunugayga ii iloobayaa oo iila hadli la'san yahay ilaa iyo hadda hadalana aanan ka haynin. Saas darteed Axmed Biif uu live soo galay arrimo badan markaas uu caddeeyay iyo arrinta inta ugu badan asiga iyo adeerkiisa khilaafka ka dhexeyso. Heer Axmed Biif wuxuu gaaray adeerkiisa uu aad u naco. Fadlan daawade waxaan kula wadaagayaa Axmed Biif dhibaato walbo adeerkiisa oo u geystay. Fadlan daawade muuqaalka daawo, like-tana hanaga iloobin. Soo dhawow bal daawade. hooyada baan ahay Axmed Biif, hooyadiisi baan ahay. hooy inaad wax ii qabato, xaajigaygii baa tahay, xadkii baa tagtay, waa ku duceyd ilaah baa ku siiyey. fadhiga xun inaad iga bixiso oo buushka aan ku jiro oo maartay sharaftayda dulmigu ma fiicna. Anigu haddaan hooyada caasi ku noqdo sidee ku dhacaysaa inaan xaramkii joogo? Sidee ku dhacaysaa? bilaahi calayk ii sheega idinka daawade haddaad muuqaalka soo daawatay fadlan waa naga codsi, fadlan janaalka oo noo qurxi oo subscribe noo dhig, gambaleelkana u furo. intaas ayaad muuqaalka ku hakinaynaa, bal muuqaalo kan oo kale caynkan ayaa ku kulmi doonaa daawade.